islaan oo gabar leh ها wiil iyo aabihiis wiilkoo kale tusaale maalan haddee maamada isfahmaan isguursadaan ها wiilka aabihiis gabadha kale oo maamada lahayd ma guursan karaa asna ها وقرص كره ها diiniyan نعم marka diiniyan hadduu ilaahay ubadka la siiyo maxay isku أنا naqayaan لبا إسوتي أسقرت سوما ويل يا ها بيزا hadda قبري wiilki هو يذكر القرصة haa hooyadina wiilka yaraa qabo aabihiina gabarta yaroo qaba نعم marka hadduu ilaahay kala siiyo ubad tusaale ahaan wiilaa dhashtay wiilkaas hooyadii iyo aabihii maxay u naqayaan wiilkii iyo gabadhi وعدها وحي ونقنا وعدها نينكست وحي اسكو يجي وعدها يا أخي كلير وي maxay isku yihiin wiilka dhinacna walaalo mar kale naqan karaa aabihiis dhalay oo islaam kale ka dhalay tanna saasay u naqanaysaa laa baas maasanta baarak allah dhinaca kale low السلام عليكم شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مقعيقة وشريف كاسو وعي جرمك شيخ بارك الله فيكم الله كبركيه بارك الله فيك سؤال أخي وين كوي جاربي ها شيخ سؤال كوي دينا maxaa ku xisaabsantahay zakada واقرت zakada sanadka la dhiiwayo zakada maxaa rabay inaan siiyo waama siiyabo marka inaan wax ka weydiin inay sax tahay mas inay qalad tahay maxaa jira dad qawadayda sida adeerkayga iyo habartay aan bil joogto siiyo marka zakada markay imaado aariga marka inaan bilka zakahan ugu xisaabo macquul miya diinta maxay طيب وكاga jawaab su'aashaas okay qadka telefoonka dhinaca kale السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ واكو سلام اي ورن عافمادك ورن الحمد لله أخي بارك الله فيك اخي سوماليان جوغا سؤالا كويدينا ان شاء الله هاي dadka qaar ee Yurub gala gabdhaha qaar waxa lagu wadaa nin aan qabina wuxuu leeyahay inay qarash dhiibto gabadhan waa xaaskeyga marka qaabkaas gabadha ku baxday qarashkaas meesha ku baxa diinta maxay ka qabtaa اوكي وكاga jawaab abshir in sha Allah dhageyso in shaqadka telefoonka dhinaca kale السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ ها حالك غور الحمد لله سؤال انا كوي ديرو هاي سكت بالا لا يقال سكت بفكره يا سكت بالا لا يقال حسوق سكت كنت هذا سكي بعد اسم قبته سكد مكو واجبت marka hore سكت lagu waajibin dhaqaaleey aad u liitaa hadii ku waajib ina bixisma su'aasha wala lagaga jawaaba insha Allah هاي dhinaca kale هلو السلام عليكم هاي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ واكو سلامة adigii farsamayaqaanka iyo dhamaan bulshooyinta maqlaysa masana daawanaysa waxa weeye Abu Muhammad oo ka soo wacay Belgiumka waa gartay بارك الله فيك waxaan ku weydiinaa su'aal ah telefoon aan rabaa inaan soo qaato telefoonka marka lacag oo waxa ku soo qaadanaa oo bishii in yar bixinayo internet ahaan iyo sim ahaan هاي marka sim card soo raacay marka telefoonka lagu siinayo iyo internet telefoonkana lacag yar bishii ku dareysa marka simki iyo internetkii iyo telefoonkii lacagood markii la isku geeyo bil walba waxa lagu leeyahay bil matalan waxa bixinaysaa 80 euro oo kaleeto هاي marka waxa may noqonaysaa riba may noqonaysaa ina ogaada rabaa 80 kaas isbedelaysa may isbedelayso طيب waa kaaga jawaab waqtigi lagu talagalay hadaa ka bixiyayso waxa laga yaabaa xoogaa yar oo ganaax in lagu soo diro oo micnaha bil matalan waxa ina bixis laga rabay labada bishii oo kaleeto lacagta hadii ka soo dib dhacdo waxa laga yaabaa 5 euro kaleeto inay ku raacdo oo ah maxaa u soo dhahaysay هاي su'aasha waa gartay dhinaca kale halow halo ها السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته رسول سماحة ها تلفونك يجلس أخي تي في اسك قابي تلفونك هذا ما مقلشة تلفونك هذا الأخي أقوى قف كاس وعم فيلي التلفون دينك الهلو تلفونك تي في وف داونا يا قفكا الو
tawana waayo waxaan kala soo hadlayaa Nairobi. waa gartay waxaan rabaa hal su'aal inaan ku weydiiyo sheekh oo maalmahan baraha bulshada aad liisula dhex maraya. waa gartay su-aashaas waxaa waaye nin culamo ah wuxuu yiri dadka waa inay soo baxaan oo ay qabuuraha soo aataan dheriga ma karo u dhahay qoryo la'aan ma karo qoryahaada soo qaado qabriga dul imow sidaas darteed wax allaali waxaad rabto waxaad ka helaysaa qabriga. waa gartay akhiyow ninkaas marka saas aaminsan ma lagu daba tukan karaa salaad ma ku ansaxmaysaa ma lagu masaajidka uu tujinayo ama uu imaam ka yahay ma lagu tukan karaa su-aashaas aan rabay inaan ku weydiiyo sheekh. horta waa in la weydiiyaa akhi okay waa kaaga jawaabaya insha allah su-aasha dhinaca kale halow طيب هلو سؤالها أنا كجواب إن شاء الله إنك ولالك عليه زكاة يا يواجبتي مركز زكاة وحن سير أبتجي يو أذيركي يو هبريرتي نعم ولا سيكرا زكاة وكوب حدا سرقي وحيكون قنيسة أدي وحي سنين أما مسألة بالكسر العكتة أو نيبتد هذا زكاة نيستد زكاة يكون قنيسة وزكاة ولا هرمري كرا أدو جارين أي بالكسر العكتة بحيث زكاة نيسني سهدونا مركز سنة كل جار وحاج حسابي أنت بالأب بحيث زكاة وحكى جريسة العكتي كوجو جرتي أي سمين كرتا لكن هذه الصدقة وبحين جرتي قدال نيدم كده بتوري كرتي وما ديه كرتي صدقة ده أم بحين جري بالكسر العكتي أدير جري زكاة ونيس لقامة يلاي مركز دريسد أيال ربع إني ونيست إني زكاتها حد وحي كدم بالكسر مركز دريسد زكاة ونيس كرتا إن شاء الله وإن كان الأفضل وحيتها إنك لا سارتد معي لي إن مركز تا باهي إني جرتو أديرك إنه باحنا وكل سوق سند للسوق تد لبكذا هذا لكن واكو أن صحيحة وصوشي فروع ذكالية أي زكاة لسين كريم. سؤال شكله منك ولا لك عويدية تذكر نكاح بين تسكسو كحينا ما بنها أخي كذبوي نكاح حسنا ما أنصحيه إن هدو شروطي سلي ماذا أفكح حتى بين لقده لكن قال لي ونكاح وقبل مهر كذا عينه قبولك يوحي عن نكاح وداعي هدي بس جيان لبلا سقف لكن هدي إس جينين أو ويل إيو إدريس إتهاي أما ويل إيحاس ولا شيء إتهاي نكاحس وكسي دم بوينها معايا لي حرماتك إلهي لو كنتي قبل ولا شيء إنها تلا واقبة أما قبل لقب إنها تلا واقبة ودم بوين كبير وين قفك مسلم كحرماتك إلهي نقول عليه أما قف أجنبي كو نكاح حقوق بدايتها هذو شروطه نكاح ودعي نكاح سو دعي وأنا فرطة وأنا فرين هذا وأنا يجي ماذا نعم أقولك وحكمية ديل المقالو هذه نكاحس أما ديل لقوضه أما دبل لقوضه هذو شروطه ما دبلوا نقناع حواسه كجرا ويركل عليه تلفونك الوقت تلفونك مع السيمك هذا العكس زي موقته تلفونك قيمه سي waxa ku jirto iyo lacagta ku hadlaysay wixina asku jiro marka haday 80 wax isbedelaynin la baas insha Allah wax dhib ma laha laakiin Yurub qaar waxa laga sheegay nidaam kale telefoonka kaliya laga gadaayo oo hadhow lagu dhahayo hadii aad bixi weysidna lacag ku rees markaas reebo noqona laakiin markay wax dhan kumbalad yihiin waa nidaamka Ingiriiska loogu dhaqmo inta badan la baas insha Allah hadii isbedelin lacagta أخي نكان وحوش سؤالك كلا ويدي بعيد يرق نين أساسي أنا مركز سؤالها أو هبل أساسي نين عالم أساسي كما جواب محيي لي وحاول أكسن إن دقها كود جيستي وعجل كأد جيستي بل شيخ قفك واحد شيخ أو عديد وحقيقة ستيد محول الجهدي قفك واحد وصلان كرا وحباك قال دم كرا مصير موكوية هاي وحاسة حكم كرا لكن عجلوين كان صوت شيء وهذا اللي جوينا يو مربوح لكينا يو وحوي لكن واسكجر عندك خرافات آمنسن ولو نكسن يستين ونكسن إنه قفك لو نستحي إن شاء الله قدك تلفونك هلو يا شيخ magacaygu waa cabdiraxmaan maxamed mucow waxaan ka soo waxayaa london Eastfield area واقرت laba su'aalo ka koobana sheekh qaba insha Allah barakallahu fiik marka horeyso islaan adiga aad guursatay hadii alla idmaayo aadan la gogol gelin gabadheeda ma ka xijaabanaysaa mise maxarimtii kaaga mid noqonaysaa su'aasheeda koowaad waa insha Allah gabadheeda heeru soo dhashay ma sha Allah rabeen ma ku noqonaysaa sharciyan waa islaanad guursatay insha Allah markaasna aadan la gogol gelin واقرت taas meesha ugu haraa mid kale waa jirta marka qaarkood sheekh ogaa shaqooyina meel ka helna marka waxaa dhacayso adiga xilli salaada ay dhowdahay oo kale meel dheer oo magaalada banaankeeda oo kale adigu saacado badan loo soconayn bas lagu qaado shaqa meesha ku tagtid waardiye camal haday doonta xataa mid way noqon badan ay noqotaa meesha aad taagan tahay salaadihii markaasoo kale qof musaafirka safar oo qorshaysato degdeg ma laakiin masaafadii wixii dhan way dhaceen
marka insha allahu ma suurtoobaysaa in qofka markaas uu niyada safarkii oo kale salaadii uu qasri iyo jamci iyo taqdiim iyo taakhiir ku sameeyo ma suurtoobaysaa mase hawaama ma dhahaayo ma jirta waxaan leeyahay sidaa u dukanaysa markaad muqiimkeeda u dukanaysaa insha allah baarak allah fik waa gartay dhinaca kale halow السلام عليكم. نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ وصولي سؤال أنا ربع أنا كويتيو. هاي سؤال شو حوالي من قفوا معنا برداشت كتلك سيدي حتى يوروبا مع أمريكا كل ما نايان هذه قفوا قبيلة وحكاها لين هذه بنك الشيخ أو كل ما يجي كورن سوا. ما حتى الكو سؤال سيفع مكو فاهم أخي. waxaa ku dhahay sheekh qof oo macnaha sheekhe haddii oo macnaha bortays america oo been ku imaado hadhooti rabbi inuu xaq ku sheego see waay macnaha xaq ku sheegi kariyaa qofkaas inaa isaab bortayskiis markoob been ku imaadee akhi codkaaga waxbaa ku jiro qofa process mara tiri laakiin si fiican ma u fahmin waxaa qof oo bortays soo maray oo been ku soo maray oo kadib inta dugsiga qabtay حق مالك دغايس كرا معناها قف شيخ ما تري او امريكا تاغي ميا ها او بين اسكو ديبي بين اسكو ديبي حق مالك دغايس كرا نعم وافهم ان شاء الله اوكي شكرا انت وحواي دك اروسك لا جلاي صدود بري لا جلاي نعم اوكي دي تمني افر بري كدكتو دينت معي خبطه نعم اروسك صدود قلك نعم وافهم لبض سؤال وافهم ان شاء الله وكسي واكو كسي سؤال دينك كلا لو هلو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخ waxaan rabaa inaan su'aal ku weydiiyo abahay waa la dilay awowan waa nool yahay oo aaba dhalay marka caruurtiisuna waxay leeyihiin ninkii dilay diya ka qaadan mayno awowna wuxuu leeyahay diyaan qaadanaya marka yaa xaq u leh نعم وافهم سؤال دينك كله هلو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ waxaan rabay loo su'aalood inaan ku weydiiyo. Tan koowaad sheekh waxay tahay arrinta waxay ku tacalluqdaa jaadka baalka ama qaadka la isticmaalo waa garta marka dad baa kan ganacsadada tanna way cunaan naam marka kuwan ka ganacsada waxaa laga yaabaa hanti badan inay ka dhaliyaan oo aad u fara badan marka hantidaas ma noqonaysaa hanti lagu xajin karo oo yacno wanaagsan oon shaki lahayn mise waxa weeye hanti aan fiicnayn midda koobaad waa taas midda labaad waxay tahay arrimahan ka taagan hadda wadanka Soomaaliya gaar ahaan gobolka mudug waxaad u jeedaa inay dhibaatooyin badan ay kasoo wajahan yihiin dadkii mas-uuliyiinta ahaana qorsi jacayl ay u dhaafsanayaan dadkii shacabka inay barakac iyo dhibaato u horseedaan mas-uuliyadooda dadka yacno dhibaatada ku sameynaya yaa lala xisaabtami doonaa ama garanaysaay maadaama mid waliba uu sheeganayo inuu isagu saxan yahay oo laba kooxood ay iska soo horjeedaan oo kooxna kooxda hadda ka talinaysa ay tahay kooxna kuwii horay oga talinaya ay ahaayeen mid walba waa garta dhinacaas mid walba su-aashaad waa fahmay dhinaca kale ma su-aalahan ka jawaaba marka hore dabcan su-aasha kuwaad walaalka wuxuu yiri rabiiba islaan aad guursatay oo gabar wadata markaa nikaaxa kugu dhacay oo islaanta aan gogol la gelin gabadhaas weysmi kaa jibisaa nacam maxaa yeelay qaacidada waxaa weeye alcaqdu cala albanaati yuxarimu alummahaat والدخول بالأمهات يحرم البنات قبل ربيبدا إلهي التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم معنا قبل هذا قرصة هويدت
oo aad gogol la gelin haddaad furtid gabadheeda waa aroosi kartaa laakiin mar haddaa habarta aad gogol la tagtid xaaraanay kaa naqanaysaa gabadheeda laakiin cagsiga waxaa ah gabadh haddaa mar nikaaxsatid ama gogol la gal ama halgolin hooyadeed xaaraanay kaa tahay marka qaacidadaas qaado insha allah su-aashiisa labaad akhi waxay ahayd dadka tagsiilayaasha oo safarka haddii masaafada ay xasasho oo magaaladaba aa ka baxdid salaada waa qasri kartaa qasab maaha inaa safarka niyi aad la timaadi maaha waaqic hadduu u yimaado salaadihii waa qasri kartaa insha allah haddii jamc tahay iyo haddii qasri tahay haddaa jidka ku jirto sayrka ku jirtid jamci qasriga tukanaysaa haddaa meel nagan tahay qasriga keliya tukanaysaa akhi su-aal kale wuxuu leeyahy nin been sheeg wax ma laga dhegeysan karaa ha waa laga dhegeysanaya hadduu xaq sheegayo xaq hadduu sheego waa laga dhegeysanayaa oo maxaa yeelay kuma xirna xumaantiisa kuma xirna walidaalika ilahay aayaddii qur-aanka haddaan ka hadlayna daahir bini israa'iil waxyaabaha ilahay ku lacnadayey waxaa ka mid kaanuu laa yatanahawna can munkarin facaluuh macnaa tanaahi waa mufaacala wey iskama reebi jira kan asoo gaf ku jiro haddana ninka kale gafka uu ku arka maka celinayn aduu gaf cunaya hadduu nin oo qaad cuno ama qamro cabo qofka waa dhihi karaa warniyo qamrada waa xunta iska dhaaf waa dhihi karaa lama dhahayo adaaba cabtida ma iga reebis lama dhahayo marka qofka hadduu xumo ku jiro dadka waa ka reebi karaa alamru bilmacruufi balse bacd culamaa waxay leeyihiin markay ka hadlayeen waxay leeyihiin alamru annahyi can ilmunkar xataa caadilnimo looma shardiyo ninka inuu caadil ahaado xumada oo ka fogaada looma shardiyo waa haddaan sheegaya waay dadkay qusaysa anaga waxaan baran wax kasta culamada loo geeyo culamada ka hadlaan culamada kaligeed maaha dadka ayaa kow asalka ah waxay reebi karaan ayaga inay ku bilaabaan culamada wixii dahsoon iyo ay bayaaninayaan kaliya masalada wiilka kale su-aasha kale qaba waxay tahay shahrka oo todobada ah 14 ma la dhihi karaa nacam hadda yurubta 14 waa la dhaafay shahr bil dhan la yiraahdo holy month ama shahru casal allah bila la gaarsiiy haddaa firaaqa leedahay adiga laba bil xataa gaarsiiy dhib male insha allah waxa waa masalada curfi weye asalka waxaa la rabaa in laakiin gabadha nabiga alayhi salatu wasalaam waxa sunna ah weli sunna ah gabar ninka oo bikaraha markuu guursaday inuu 7 cisho oo la joogo ayaa ah oo fasax soo qaato maxaa yeelay dad isku cusub waay inay isbartaan way 7 wey gabar garoob haddaa guursatin 4 maalin idin 4 maalin oo isku baran kartaan garoobka laakiin gabadha oo bikrada ah weli aan hore loo guursanin waxa weeye 7 maalin lagu siiyey marka hadday adiga 7 ka badsatid dhib ma lah laakiin yaka yaraan laga hadlaa kaliya insha allah walaalka kale wuxuu weydiiyey aabe iyo wiilkii ama awowihii iyo carruurtii isku qabsadeen diyadii qisaaskii iyo cafiskii iyo diyadii awowha hadalkiis la qaadanaya balse asalka caam ahaan markii loo fiiriyo hadday warasada isku qalbaan qisaaska iyo diyada cafiga mar kasta wa an tacfuu khayrun lakum oo marka cafigii iyo diyada in la qisaaso waxaa la qaadanaa in nafta in la badbaadiya mar kasta ah waman axyaaha fakaan axya annaasa jamiican marka ninka qoladu ku dhegan oo dhehees wax la cafiyo ayaa la qaadanaya culamada qaar qabaan insha allah marka awoah maadaama dhahayo qisaas lama qaadanayo hadalkiisa la yeelaya midda dhinac kale hadii laga fina asal wey asal iyo farcana asalka xaqa badan mar kasta su-aasha kale walaalka wuxuu leeyahay qaadka isticmaalkiisa nacam qaadka isticmaalkiisa qaadka dabcan anaga culamada xarantimaysa ku jirna laakiin culamo kala banaysa walidalik maadaama uu shubha ku jiro shubha hadduu ku jiro qofka warac ahaan inuu ka dheeraadaan roon laakiin hadda lama dhihi karo maalka laga shaqeeyey xaaraan baxti lama dhihi karo maadaama masalada ay tahay masale ijtihaad ah oo qaalan ay xaaraantimeen qolana ay isticmaalaan weli khaasatan dadka qaadka wax laga weydiinayna waa inay ahaadaan ninaan qaadka cunin nin sheeqa xataa hadduu yahay oo cuno waxaa la yidhaha almubtala bishayi laa yustafta ninka haddii wax lagu imtixaan nin sigaar cabo ilahay ku imtixaanay sigaarka ma banaayahan lama weydiina xataa hadduu sheeq yahay shaygaas lagu imtixaanay lama weydiiyo qofka laakiin waxaan ka hadlayaa sideeda caamka dararkiisa adiladan waxay rajixinaysaa darar nafsi inuu leeyahay darar maalka inuu leeyahay darar caqliga oo kuliyaat lqamsada shanti oo xifdigooda la ilaalinayo inuu ku dheelayo laakiin haddana lama dhihi karo maalka laga qaaday xaaraan baxta weyn lama dhihi karo insha allah oo macnaha wax waa laga qabsan karaa dadkana waxay fiiriyaan mar kasta xajka ma laga aadi kara mar haddii la cuno cunidaa ka daran xaaraan ina calooshaada gelistaa ka daran xaj inaa aadid dadka markas waxay leeyihin maal xaaraanta ma ka xaji karaa war xajka taali gaar xaaraanta ina cuntiga ku bani adig cunitaankaaba la isku haya nacam su-aasha kale masaalka wuxuu weydiiyey akhi arrinta mudug ka dhacayso nacam akhi fiiri annaga mushkiladda nahay soomaalida waxaa waye mar kasta waxaa la fiiraya yaa mas-uul ah hadda dowladda kacaanka dhacday yaa mas-uul ahay ilaa hadda la isku haystaa may qoladaasa qaldaneed may dowladda qaldaneed
marka mas-uuliyadda lama fiiriye ficilka xajmigiisa la fiiriya ikhwaani dagaal ma fiicna ama dowladda ha wado ama qolada kale ahlu sunna dhahaya ha wadaan dagaalka ciddii oo nabiga calayhi salatu wasalaam ida iltaqa almuslimaanu bisayfihima falqaatil walmaqtuulu fi nnaar uu yidhi markaasuu yidhi fama baalu lmaqtuul ninkan waabla dili maxaa dhacay markaasuu wuxuu ku yidhi fa inuu kaana xariisan calaa qatli aqiih wuxuu rabay oo kama qaala sal alayhi wasalam wuxuu rabay asaga inuu dili maana waa laga hormaray mar hadduu dagaal dhacdo dhibaata labadooda way shallaynayaan dowladda waa shallaynaysaa kuwa kalena way shallaynayaan walidaalika dadka caqdiga xalka ah arrintaas waxaa la iska qancin karin ma laha waxaa la iska qarin qolada oo meesha haysata waxaa leeyahay war nidaamka dowladda yaa la diidin nidaam dowli waa wanaagsan yahay dowladnimada ayaa dadka dhan wada deeqda ma wanaagsana dowladdina dadka hayasin dowladda mushkiladda dowladdan aan ku aragno waxay ahayd qof kasta inay xaqirto wax kasta xoog haram cad kan war muslimka yaa la laynin marka in labadaba lakala ilaaliyo xaqa saas loogu sheegay ku fiican tahay laakiin inaan u fiirisano yaa gar lahay maaha dhibka inaan ka tagno oo aan gar yaa lahay aan raadino marba shaydaanka meel buu dadku ku tuuraya laakiin waxaa mutafaqa lagu yahay dagaal in laga ilaaliyo arrintaas mar hadduu dagaal bilowdane fawdada kuma ekaanayso magaaladaas kaleed magaalo kastay gaaraysaa sidii aan dagaalkii waagii oo kacaanka meel buu dagaal ku qaaday ilaa iyo magaalooyinka dhan ay gaarto oo dhibaata ay dhacday marka fitnada mar kasta naa'imato lacana allahu man ayqadaha war fitnada yaa la noolaynin oo dadka loo naseexeeyo oo dadka ayagoo lala dagaalin ayaa kolka horaata wax laga dhaadhiciyey kolka horaata wax ay ogolaadeen haddana halal ogolaado ayagana waxaa le ummadda u tura nin diin sheeganayo oo dhahaya dadaan qoryan qaadanaya meel kusoo aroorta male diinta marka ilaahay xaqa ha tuso dhammaantood insha allah qadka telefoonka halow asalaamu calaykum sheekh waa ku salaamay wacalaykum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu waa abuukar cali soo jooga austria laba su-aalaan qabaa haddaan labada su-aal boobsiiye waxay tahay midka koowaad waxaa waaye gabaraan isqabnaa marka diiniyan diinta muslimka isku qabnaa marka xagga dowladda iyo markaa u tagnoo kale marmarka qaar waxaa dhahnaa isma qabnoo kale taasoo kale maxay dembi noqonaysaa oo muxuu xukunka noqonaya hadduu caruurta dhalnoo kale midda labaadna waxay tahay inta badan dadka hadda meesha jooga waxaa lagu xujeeyaa inay de waa isqabnaa dhahaan inay waraaqad kasoo qaataan kiniisadda oo kale marka kiniisadda inaad aado oo waraaqad caddeynaya kasoo qaato kiniisadda al aada mase consulka munshibid kiniisadday dhahaan kiniisad ma filayo meherka waxaa sameeyo consulka ama munshibida samayso kiniis shaqa kuma laha haddeeba dhacdaba taas haddee dhacdoo kale maxaa dhici karo ayib aye dhinaca kale halow halow halo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu su-aal ero inaan ku weydiiyo su-aasha waxaa waaye ma arkano tinta la dabanayo nimanka tinta ma daban karaan nacam ma la ogol yahay okay waa kaaga jawaab su-aashaada dhinaca kale halo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu sheekh ugu horey waan ku salaamay rabbi ajar iyo xasanaada kaa siiyo su-aalaha diinigaad mar walba dadka halkaa uga soo jawaabayso waanan kaaga mahad celinaya baaraka allahu fiik intaanan su-aashayda gelina dadka soomaaliyeed inta badan baraha bulshada codkaaga ku jarjara waxaan leeyahay ilaahay ka cabsada wadaadku waxa weeye halkaasu inoo soo fadhiistay ka daaya siyaasadda iyo waxbay nowl hore la waxwaxayn jiray iyo dadkaa siyaasiyiinta ee wadaadkan dhibaatada ka daaya mar walba codkaaga tiltoog iyo meelaha wareejinayaan dad waayeela moodaya inaad sidaa waraysiga u bixiso maalin dhaweed annagoo xaafadda joogaba dumar waayeel iyo odayaal baa ayaa dhegaysanaya asaan ku war sheekha maaha dad baa jarjara marka dadka waxaan ugu baaqayaa dee sheekadiinu siyaasiyiinta ku koobnayd iyo fanaaniintii waxaase wadaadka ka daaya ayaan leeyahay kuwaas horta ugu horreyn jazaak allah khayr akhi ilaahay ajrkaasi baaraka allah fiik sheekh aad baad u mahadsantay imka waxaan joogaa qurbaha mararka qaar waxa dhacda salaadii inay suurtogeli weydo meelaha qaarkood oo waktiguna inta badan xaggeena mararka qaarna maalintiibaa yar marna habeenkiibaa badan marka mararka qaar waxa dhacda salaadii inay isku kay gaadhaba mararka qaaroo duruufteed markaa jirto waynu garanayna meelahan joogno tusaale ahaan duhurkiibaa tegay casarkii maqribkii oo kaleba ayaan guriga yimid sheekh sidee baan markaa salaadii u kala bixinaya bal ilaahay khayr iyo xasanaada baarak allah insha allah abshir insha allah dhinaca kale halow 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 halo ha
telefoonka hadal وهلا haye وحقب الشيخ بنا سؤال ودي ya هلو waa ku maqlaa ها سؤال ما ربي شيخنا كويدي haye laba su'aalood baan rabay inaan ku weydiiyo su'aal waxa weeyaan waxay ku saabsan tahay sakada lacagta imise ay ku gaadhaa sako tusaale ahaan $100 haddii meel la dhigo oo bisheedii ay gaarto sakada ma noqonaysaa waa kar su-aasha labaad labaadna waxay tahay rabadaanka haddii tusaale ahaan adoo umul oo kaleeto uu ku dhaafo oo sanadkii kalena uu kuu soo galo haddana sidii oo kale ay kugu dhacdo soomi weydo oo sanadkii kale uu kugu gaadho 3 نعم طبعا سؤالها ka jawaaban marka hore walaalka hore wuxuu leeyahay waxyaabaha sabridka uu sheegay dabcan sabridka waa dembi weey dadka waxaa la yaabay mararka qaarkood furiin ay ka baqaan islaanta inay ka furanto kaliya sabridka haddii aad warqad ku qorto islaanta waa kala tagnay waa furiin ku qorta furiin oo naqanaa laakiin waa dagaalan hataa ku qortay furiin maaha laakiin lacagta meesha kugu soo galaysa xaaraan lacagta ku qaadinaysa xaaraan ilmaha lacagta siinaysa waa xaaraan lacag been kugu soo gashay ama markaas gabadh isxaantaada ma furin marka ilmaha ku dhashaada askale furiin mar ma ku dhawaaqan oo asaga furiin hore automatic isku bedelayo furiinka qofka ninka ku xiran yahay inuu ku dhawaaqo ama saraxa ku dhawaaqo ama sarbeeb ku dhawaaqo si toos ah u yiraahdo waa kala tag waa furay ama waa kala tagna ku qoro waa kala tagna niyadiisa u jeeda furiin maxay waa sarbeeb waa kala tagna macna badan ay yeelan kartaa walaal ninka la weydiinay waxa leeyahay maxaa ula jeedo furiin naqanay haddii ula jeedina furiin ma naqanayso laakiin yaa laga fikirin caruurta in nikaax kaliya dembi weeye gaalada in been loo sheego oo xoolahooda la dhaco oo saas ku qaadatid lacagta aad dhigaysid taa shaqaynaysid wixina aad kaaga ciyaartay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay suxtiga akl maal suxtiga la iska ilaaliyo maxaa yeelay maalka inuu ka fasaadina caruurtu ka fasaadina qolooyinka sabridka ku heshiiyeen gurigooda waa dumaba ilaah isku diray islaantii iyo oday iyo ilmihiina qaarna way dhumeen markii tirkoob la sameeyey marka ilaah laga cabsado dadkeena Yurub joogo sabrid kale iska ilaaliyo muslimna tahay waxaa mathalaysaa akhlaaqda islaamka mathalaysaa gaalad been ha u sheegin run kula dhaqan insha Allah su-aasha labaad yarka wuxuu leeyahay kaniisa wax lagu sameeyo ma arkin ana Yurub waa joognaa kaniisa caqdi nikaax laguma sameeyo qolada waxay yiraahdaan tasjiil madani soo sameey midkan oo madaniga ah waxaa laga sameeyaa konsolka xaafadii munshiibida degan tahay markaati ayay sameynayeen mararka qaarkood xataa meesha nikaaxa la wici karaa nikaaxa shariica islaamka qof ay u soo dirsanayaan inay arkaan kaliya labada qof inay nikaxsanayaan warqadaada ku siinayaan wax oo hada weyn maaha xuquuqa ka ratimaysa nacam hadhow badan laakiin mid diin uma hayga xagooda gaalada kaniisada la geeya xataa koodii kaniisada laga dhaafay kaniisadii u dhaafeen koodii laftooda kii gaalada iska dhaafay ka muslim la geeyay walaalkayga yarka kale wuxuu weydiiyey tinta la dabaayo oo ragga ah ma banaanta uu yiri gabdha waxaa moodaa arrintaas Yurub way ku badatay ilmo yar oo aan jecel nabiga aan u damanaynin ileen nabiga dabtay daliil way laakiin xubbiga nabiga calayhi salaatu wasalaam anaga wili hadda bish mawlid ku soo footays xubbiga nabiga calayhi salaatu wasalaam dariiqada loo cabiro waxyaabo badan anaga qaldan maxaa yeelay nabiga wuxuu rabaa itibaac in lagu daysado waartay dadka gaalada jecel soo u jartay u jaranayaan dharka soo u xirtay u xiranayaan hadda nabiga jeceshahay la imahu nabi jecel horta ahsan niid maxay cibaado way itibaac nabi sunnada waa cibaado niyo u baahan tahay kow waxaan leenahay ilmaha timaha dabanayo war haddii aad adoo gaalka daynayo hooyada ana been u sheegtay ilaahay waa ku ogsoon yahay niyada kuwa inaa la timaada nabiga doonaysa labo sidoo nabiga u dabanaysaa nabiga ilaa afar galaamuu sameeyey oo dabtay afar laakiin waxaan tidcanoo tobanka ah nabiga ma samayn calayhi salaatu wasalaam marka waxaan leeyahay haddaa nabiga u daysan afar dhaafsiinina dabitaanka afartaas gadaal loo tabayo nabigu waa sameeyey afartaas ayaa ka soo aroortay niyeystana inaad nabiga ku dayanaysaan balse tinta kaliya ha kaga dayanine sunnadiisa la imaada sarwaalkan isku dhegan aqaadinaysa nabigu ma xiran jirin shaarkan gaaban lugtan jiista ee markii la soconayo nabigu ma soco jirin raaca nabiga calayhi salaatu wasalaam tinta kaliya danteeda ha gelina walaalka kale wuxuu weydiiyey jazahu allah khayr xadiis nabiga calayhi ninka walaalkiis asagoo maqan difaaco ilaahay subxana wa taala asagana waa difaacaya walaalkiisu maadaama anugu maqan uu difaacay uu leeyahay ilaahay waxaan ka bari miisaanka xasanaadka ilaahay kuu saaro qoladaasna ilaahay soo hanuuniyo si ugu duceysa anagana aamiin oo ugu duceynayna insha Allah markastana u duceeya aniga cafisna waa iga yihiin markasta salaada waqtigeeda weydiiyey nacam salaadaha waqtigeeda dad badan ay ka qaldan tahay salaad ma dhamaato ilaa salaada kale ka soo gasho salaada duhur
way jirtaa ilaa casirka laga adimo marka haddii aad intaas tuka weysa shaqada ka jeclaata marka salaada fiiri waxaa lagu leeyahay salaada duhur way jirtaa ilaa casirka uma badhamnaa ilaa maqribka laga gaaro maqribkan dhamaa ilaa cishaha laga adimo laakiin dadka waxay u qaateen awalka hadday ka tuka waayeen salaada inay salaada ka tagto u maleeya kama tegin salaada waxay tegaysaa ilaa salaada kale laga adimo ku dadaal salaada maxaa yeelay ina salaata kaana cala almu'miniina kitaaba mawquuta ilaahay waqtiyey ha dayicin wixii aad salaad darteed ugu tagtidna ilaahay bedelkeeda ku siina insha allah zakada gabadha waxay weydiisay meeqay ka bilaabanaysaa zakada $100 zaka kuma waajibto waxay zakada ka bilaabanaysaa mar kasta waxaa la socotaa qiimaha 85 garaam ninkii lacag meel u taal hadduu rabo inuu ogaado in zakada oo sanadna kasoo wareegay hadduu rabo inuu ogaado in zakada uu gaaray dahabluhu tagaya wuxuu leeyahay 85 garaam imis wey haddii 3 kun la yidhaaho lacagta uu hayday 3 kun dhan tahay sanadna kasoo wareegay 25 oo ka bixinaya haddii uu oo 85 garaam la yidhaha 4 kun uu 3 kun hayo zaka lagama rabo xataa 3,900 hadduu hayo 100 ka dhiman tahay lagama rabo zako maxaa yeelay zakada wuxuu ka bilaabanaa qiimaha 85 garaam mar haddii gaartane oo sanadna kasoo wareego iyo milki taamka iyo shuruudihii loo shardiyey 25 oo ka bixinaya kaliya waa lacag yar waa 2 iyo bar wey su-aasha kale gabadha waxay tiri ramadaanka kale inuu kugu soo gaaro maaha haddii oo cudur sharci saa sheegtay oo umul iyo uur iyo kugu soo gaaray qalale lagaa rabo wax kale lagaa maro mar kasta qalada waa soo gudaysaa laakiin haddii adigoo gudi karo oo sanadka kale kugu dhasho oo waxay naqaysaa qalle iyo fidya lagaa rabaa miskiinna waa quudinaysaa inta maalinkaa tagtay maalmahaas waa soo qalaynaysaa goorta ilaahay uu caafimaad ku siiyo sidaa awoodida usoo qalaynaysaa su-aashaas ay ugu dambeysay wax haddaan qaldan nafteyda iyo shaydaani ka ahaatay haddaan saxnay tawfiiqda ilaahay subxaanaka allah bixamdiga ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilayh wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh